وايه هذا بعشر كان نجا عم بلون مرك إن عشر كان نجا إن ما أنتم عم بلاقينا عشر كني أفراد مادة حسابتها الجبر إن عتب كل حد إن فصل كسديدات إن عشر كنا أفرادنا وحكوسها بسنان دونا إن حدولير quadratic expressions إن عشر كان وحكوسها بسنان دونا quadratic factorizing quadratic expressions وحنا كبرنا دونا إن كو إن common factors of algebraic terms إن لابا وحنكو أركي دونا يصدح إن factoring special quadratics وحنكو أركي دونا factoring إن quadratic قاب كاو قرن ax squared plus px plus c إن مركو 10 كان دم هذا مرك أرضي جو حلو جبه هي ومحي كو إنه ومحي إن find out highest common factor of algebraic terms إنه رادي ومحي إن common factor أما يصير وذاك أي وذاكان إن algebraic terms إن اللبا وحلو جبه هي إنه factorize جريا special quadratics إن سدح دقة وأنا أركض دونا سدح حدود يسوي كل بحان إن وأنا apply جرين دونا in real life situation إن سيدو كلها إن سدح وحال أركض دونا factorize x squared plus bx plus c إنه factorize جريا quadratic نوع سقران إن وقدام بينا وامحي إنه enjoy جريا factorization activities إن هذا مركب lesson كنا أفراد إن قيبتي سكواد وحنكو أركينا وامحي common factors وامحي مركا إن common factors و numbers we can multiply together and to get another number ولبا number أو اللي سكولو فنكرا أم وحكا بدن سي أنو هلنا number سيدا تصالي أهان 5xy plus 10y إن مركا كدب كوا common factor قودو وحو نقون كرا 5 إن 5 أيام كبول قرين كرنا بنان كوجو ساري كرنا سؤاله وحنا داني وام هاي 5xy plus 10y مركا هل كان سي أن common factor كود أن لبضان تيرو أسو صارنا لبضان تام 1 إيه تام 2 سي أن أسو كلا صارنا common factor كود وحنا سميننا محي وذاقان أما ما محي highest common factor كود highest common factor أن ماشان هاي سنة و 5 حاجة ويقف سمي كرتا 5 نوع يقف سمي كرتا سيدو كله وحاوقف سمي كرا y مركا 5y بنقول common factor حاجة وحكوسو هاري x plus 2 هذا مركا إن common factor اللي شيء ولا number أو اللي سكول فتو أكسين كرا another number ونوعس مركا إن examples مركا تصالح بنقول لنا تصالح وحلو factorize the following expressions and factorize جرينا مركا expression نداس ومد كوبادة ومحي 2x plus 14 هذا ضربتين factorize جريسة 2x plus 14 and common factor سيدا تكسو صارتو ومحي وحاترادين إيسا just number وقيب سمي كرا لباداس تام كوبادة 2x تام كلبادة 14 تيرادو وقيب سنتا ميشاس ومحي و 2 مرك 2 into وقيب سنتا 2 that's بانكسارينا مرك و common factor you pull out 2 then waxaa gudaha ku soo haraya waa maxay divided by 2 here x baa soo haraysa plus intana divided by 2 waxaa ku soo haraya 7 then hadaba taas sidaan ku xalinay way marka factorization ka aan ku sameyn karna expression ka waa inta kaliya halkaas baad ku dhaafi en tusaale labaad baa jiro b ah b waxaa lagu yiri en 4ab minus 12bx si aan marka ka u factorize gareyno si aad kan u factorize gareyso waxaad sameynaysaa just common factor ayaad raadinaysaa labada term kan iyo term kan maxaa common factor ama maxay wadaagaan ama number keeba u qaybsami kara labadoodaba at the same time and here waa maxay 4 ayaa ku jirta intana 12 4 iyo 12 4 way u wada qaybsantaa labadooda halka 4 way ku jirtaa sidoo kale b baa inta ku jirta xagaana b baa ku jirta marka common factor aan pull out gareynayno waa 4b haddaad 4b halkan ka pull out gareyso ama aad ka saarto waxa ku soo haraya a minus intana sidoo kale divided by 4 ku samee haddaad 4b inta u qaybiso waa maxay 12 divided by 4 waa 3 intana b da ayaa la bixaysa waxa soo haray xagga x halka waxa marka noo soo haray 4b times a minus 3x halka expression kaasna sidaas baan ku factorize kareyna waa expression keeni labaad
expression saddexaad baa jira haddana marka oo ah 6x cube minus 3x squared y expressionka saddexaad oo ah c expressionka saddexaad oo ah c waxaa lagu siiyey 6x cube minus 3x squared y markaan haysano markaa expressionka noocaana waxaad raadinaysaa labada common factorgooda common factorga ay labadan wadaagaan waa 3x squared into bracket divided by 3x inta waxaa soo baxaya 2x because powerka inta waa 3 uu kala go'aya powerka waxaa ku soo haray power 1 laakiin power 1 ma muujinayna marka wax sidiisaan ugu tagaynaa minus intana 3x squared u qaybi 3x squared iyo 3x squared baa isla baxay waxaa halkaas soo haray y keliya example kaana sidaas baan ku muujin baan kaga shaqeynay qaybta labaad oo cashirkan u gelinaa oo ah factoring special quadratics factoring special quadratics factoring special quadratics marka when we use the following identities to factor special quadratics haddaan isticmaalna kuwa kan oo ah midda koowaad ay tahay a squared plus 2ab plus b squared maxaad heli kartaa you can get 2 waxaad u dhigi kartaa ayadoo bracket ah oo factorized ah ama waxaad u qori kartaa qaabkaa kale ayadoo square ah saarayso waa maxay inaad a plus b times a plus b oo ku soo baxay waa maxay a plus b square laba number markaa isku dhufato square waa saari kartaa ama waa isku dhufan kartaa sidoo kale kan ku xigana waa maxay waa iyagoo minus u dhaxeeya a squared minus 2ab plus b squared waxaa haddana waxay la mid tahay waa maxay ayagoo minus ah oo isku dhufsan waa maxay a minus b times a minus b ama haddaan si kale u dhigno waxay noqonaysaa a square a minus b oo square wadaaga labadaas marka hadda labadan aan meesha ku haysano waxaa la isku yiraahdaa perfect squares waa laba marna waa ayagoo kala jaran marna waa ayagoo isku darsan labadoodana difference-ga ay ku kala duwan yihiin waa minuska meesha u dhaxaysa tan halkaas ay b a minus 2ab meesha ay tahay taa waa maxay waa a plus 2ab iyo taa saddexaad oo ah waa maxay difference of two squares ayaa la radaa midda saddexaad oo u dambaysa waa maxay waa a squared minus b squared marka haysta waxay noqonaysaa a plus b lagu dhuftay a minus b ayagoo haddana kala jaran saddexdaas baan ku shaqeyn doonaa example-ladan soo socda marka example-ka koowaad waxaa lagu factorize the following haye kuwa kan baan israynayna marka midda koowaad oo lagu weydiiyey factorize lagu dhahay waa 36 x squared minus 9 si aan tan u factorize garayno waa inaan naqaano meeshay ka imaado horta midaan root ma gelin karnaa tanna root ma gelin kartaa markaa kadib baad ogaanaysaa meelay ka imaadeen waa maxay term a iyo term b baan root gelinaynaa haddii ay root galayaan waa arkaynaa meelay ka imaadeen haye marka koowaad taa root geli waa maxay xidad haddaad geliso 36x squared haddaad root geliso waxaa kuu soo baxay waa maxay 6x 9 sidoo kale root ma gelin kartaa iyadana 9 root haddaa gelisa yes waxaa soo baxay 3 haddaba marka expressionka anagi waxaan u qori karnaa qaabkan oo ah 6x square minus bedelka aan 9 qori lahayn waxaan qorinaa 3 squared expressionka qaabkaas baan u qori haddaba marka hadda qaabkaa u qortay aan xasuusanay marka identity-ga ahayd a squared minus b squared oo la mid ahayd waa maxay qaabka loo qori jiray waa a plus b times a minus b identity-gaas haddaan xasuusano marka tan I think waxaan u qaadi karnaa marka halkaa formkaas waa u qori karnaa marba hadday a squared minus b squared ay la mid tahay a plus b times a minus b then tanna sidaas oo kale aan u qornay haddaan sidaas oo kale aan u qoraynaa haddaan dhahna aan u qaadanay termkaana a aan u qaadanay termkanna b baan u qaadanaynaa termkan 6x waxaan u qaadanay a termka term 3 ana waxaan u qaadanaynaa as b waxay noqonayaan markaa jawaabtu waxay noo noqonaysaa 6x plus b oo b aan u qaadanay 3 times 6x minus b oo ah 3 kaa marka halkaas baan factorization kaga sameynaa halkaas baa ku eg tahay kaa haddaba waxaad iska fiirinay numberka
labada tiro oo lagu siiyay inaad root gelin karto haddii root aad gelin karto waa maxay simply qaabkaas waa qori kartaa haye an example ka xiga oo 2 ah example ka xiga oo b waa maxay b waxa lagu leeyahay x squared plus 14x plus 49 kaasaan factorize gareynaa haddana oo b ah part b of our example part b waxaana la siiyey x squared minus plus 14x plus 49 kana marka a iyo b baan la soo kala bixinaa sidoo kale si aan u ogaano meesha ka imaaday a iyo b baan la soo bixinaa si aad a ula soo baxdo mideeda kale haddaad xasuusato identity-ga nooca u qorneed a squared plus 2ab plus b squared almost were the same labadoodu positive ayaa u dhaxaysa meesha marka laakiin a iyo b waa inaan la soo baxnaa a sida kula soo bixi waa inaad root gelisa termka u horeeyo oo powergiisa ama degreegiisa uu yahay 2 waa maxay square geli si aad a ula soo baxdo waxaad square gelinaysaa square root waxaad gelinaysaa x square a maxaad haystaa markaa hadda a waxaan haysanaa waa x haddana b baan soo saarinaa b si aad b u soo saarto waxaad u qaybinaysaa divide by 2a oo a na waxaan soo saarnay x marka b da aad haysata baa waxaad u qaybinaysaa si aad b u soo saarta for b waxaan haysanaa 14x laakiin aniga waxaan rabnaa haddeer inaan b soo saarno b si aad u soo saarta divide by 2a na waa maxay waa x divide by 2a ma dhihina markaan because a qiimaheeda waa x marka x iyo x waa isla baxeen xagga divide by 2 waa 7 marka b na waxaan haystaa 7 marka haddeer waan u qori karaa qaabka kale oo ah identity-ga kan waxay ka imaaday haddaan xasuusano waa maxay a plus b times a plus b halkaabay ka imaaday identity-ga marka sidoo kalena tanna waxaan ku bush garaynaynaa qaabkaas oo kale inaan ku sameyno haddii aan a na u haysano x b na aan u haysano 7 then waxay noqonaysaa x plus 7 times x plus 7 finish halkaas baan ku dhameynay taana example ugu dambeeyay marka oo saddexaad oo aan ka baranayna specialka quadratics wuxuu noqonayaa r squared minus 6r plus 9 r squared minus 6r plus 9 example u dambeeyaan fiirin c oo ah r squared minus 6r plus 9 example kan marka haddaad fiiriso formkiisu wuxuu ka imaaday a squared minus because of that minus 2ab plus b squared halkaas buu ka imaaday marka haddaba si aan a u helno marka a si aan u helno waa maxay termku uu powergiisa yahay ama degreegiisa uu yahay 2 baa waxaan ku sameynaynaa square root baan gelinaynaa a waxaad ku helaysaa square root of r square marka jawaabtu maxay noqonaysaa r haddaad xididka ka saarto waxay noqonaysaa r sida aan b ku helna marka b si aad u hesho waa maxay b keligeed divide by 2a termka ku xiga oo ah 6r b wuxuu la mid yahay 6r divided by 2a laakiin a ma qoraysa markaan r baad haystaa 2r baa u qaybinaysaa r iyo r way isla baxayaan marka divided by 2 1 divided by 2 3 marka b waxay la mid tahay 3 waxaad haystaa a na waa la soo baxday b na waa la soo baxday laakiin factorization form markaad u qorayso tan waa expanded form tan waa ayadoo la fidiyey ayadoo markaa la isreey baan rabnaa inaan tan aan naqaano dib inaan u laabato dib aan u laabana marka tan aan ka dhignay qaab furfurisa waxay noqonaysaa ay ka imaaday a minus b times a minus b labada ayagoo minus oo la isku dhuftay bay taa ka imaaday marka a booskeeda waxaan haysanaa r b na waxaan haysanaa 3 aan qaabkaa u qornay marka waxay noqonaysaa r minus 3 times r minus 3
waa factorize gareynay way marka taa sidaas baan ku factorize gareynay on ku dhameyn lastly waxaan galaynaa cashirkeena qaybtiisa ugu dambeysay oo ah factoring x squared plus bx plus c taa su'aasha noocaan maxaa la equationka noocaasna waxaa loo yaqaan quadratic equation of degree 2 quadratic equation waa maxay oo degree 2 ama waxaan dhihi karnaa polynomial of degree 2 ama quadratic marka factoring expression such as haddii aad factorize garan rabto expressionka noocaas marka if is simplified waxay noogu fududaanaysaa if we break up the middle termka oo ah ax haddii aan laba meelood u kala jibin markaas way noo kala fududaanaysaa how marka sideen u kala jibinaynaa si aad u kala jibiso marka taa waxaad samaynaysaa waa maxay to break up the middle term two numbers are found laba tiro baa raadsanaysaa markaad isku darto waxay ku siinayaan waa maxay b markaad isku darto waa maxay sumka waa inaad haysato sumkooda waa inay ku siiyaan b then markaad isku dhufatana waa inaad heshaa coefficient of x squared coefficient of x squared oo ah a times the constant term oo ah c labadaas tiro baa markaa lagu helayaa labada tiro baad booska waxaad ku bedelinaysaa termka la yiraahdo bx given haddaa lagu siiyo the expression ax squared plus bx plus c then haddaad haysato expressionka noocaas si aad u kala jibiso marka termka la yiraahdo bx markaan haysano waa maxay expression x squared plus bx plus c to break this middle termkan haddaad rabto inaad break garayso first of all waxaad raadinaysaa sumna waa maxay waa laba tiro oo markaad isku darto ku siinaysa coefficient of x maxaa kaloo raadinaysaa product ayaad raadinaysaa wax la yiraahdo product waa maxay waa a coefficient of x squared times c oo constantiga ac waxaad isku dhufanaysaa coefficient of x squared times c oo constant term ugu dambeynna marka halkaa waxaa kaaga soo baxaya wax la yiraahdo numberska waa kuwa aad ku bedelan lahayd in place of bx the two numbers marka waxay noqonayaan laba tiro oo markaad isku dhufatana ku siinaya b markaad isku darto waxay ku siinayaan b markaad isku dhufatana waxay ku siinayaan ac examples ayaan galaynaa marka examples of this lesson of this subtopic aan galaynaa marka example ka koowaad waxaa lagu factorize the expression x squared plus 9x plus 20 expression ka baan factorize gareynaa marka okay expression kan aan factorize gareyna marka expression kan si aad u factorize gareysa waxaad samaynaysaa waxaan sida aan sheegaynay sum baad soo qaadanaysaa sumna waa 9 product waa a oo 1 noogu taagan times c oo 20 ah 1 times 20 na waa 20 then numbers waxaad raadinaysaa laba number marka laba number baad raadinaysaa labadaas number ama labada tiro waa maxay markaad isku dhufato waxaa la rabaa inay ku siiyaan 20 markaad isku dartana waa inay 9 ku siiyaan si aad u hesho marka hadaba 20 tag laba tiro markaad isku dhufato 20 ku siinayso 10 iyo 2 way 10 times 2 waa 20 yes laakiin 10 plus 2 ma ahan 9 ku laabo haddana laba tiro isku dhufo oo ku siinayso 20 5 iyo 4 5 times 4 waa 20 haddana 5 plus 4 waa 9 okay marka tiradaas bay noqonaysaa marka waxaan qaadan marka halka waxaan ku qaadan 4 iyo 5 therefore aan break garey marka termka dhexda ku jiro x squared plus bedelkii aan 9x qori lahayn waxaan qorayaa 4x plus 5x 4x plus 5x plus 20 marka labadaasna factorize garey labadaana factorize garey haye aan pull out gareyna common factor maxaa halkan common factor x divided by x baa halka ku soo haraysa plus intana x u qaybi waa 4 plus xaga maxaa common factor waa 5 banaanka u saar inta waxa ku soo haray x plus 4
haddaba ka taxadir labada bracket hadday kala duwanaadaan waa maxay waxa shaqadaadu waxa weeye waxba ka qaldan marka ugu dambeyn waxaad soo qaadanaysaa labada bracket midkood oo ah x plus 4 times x plus 5 finish halkaas baan ku dhameeyay example-ka halkaa baan ku dhameynay example-ka ugu dambeeyay marka aan xalin oo ah n squared plus 3x minus 20 n squared minus 3n waa 3n meesha waa maxay waa n squared plus 3x meesha waa 3n minus 40 n squared plus 3n minus 40 haddaba sidii hore waxaan raadinaynaa sum iyo product sum waa 3 productna waa 1 times negative 40 oo ah negative 40 numbers two numbers waxaa raadinaysaa markaa isku dhufato ku siinaya two numbers markaa isku dhufato negative 40 iyo 3 ku siinaya waa 8 waa negative 5 iyo 8 negative 5 plus 8 waa 3 negative 5 times 8 na waa negative 40 haya aan break gray marka middle term kan waxaan u kala jebinayaa labadaas waa maxay n squared minus 5n plus 8n minus 40 haya factorize gray marka labadaana factorize gray xagga waxa ku soo haray n ba banaanka u saaraysaa waxa ku soo haray n minus 5 plus intana banaanka waxaad u saaraysaa 8 waxaana ku soo haray n minus 5 labada bracket isku mid waa inay ahaayeen take marka labada bracket waxaad ka qaadanaysaa mid oo ah n minus 5 inta ka qaado sidoo kale intana n plus 8 kaas bad bracket ka labaad noo noqonaya example kana sidaas baan ku xalinay ugu dambeyn marka exercise-ka haddaba exercise-ka baad ka shaqaynaysaa haddii uu cashirkaas si fiican aad u fahamtay example exercise-ka koowaad iyo exercise-ka labaad baad ka shaqaynaysaa iyo ka saddexaad cashirkeennana halkaas buu ka egyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu